بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلوم wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay malware analysis haddaba muuqaalkii ka horeeyay waxaan ku soo gudbinay sida loo sameeyo full lab oo ku saabsan malware analysis haddii aad u baahan tahay in aad dhisatid full lab oo ku saabsan malware analysis waxaad faahfaahin fiican ka heli kartaa fiidiyowga qaybaha kore kaaga muuqda muuqaalkan maanta marka waxaan ku soo gudbinaynaa ama ku taxliilinaynaa malwarekan ama sambalkan halkan idinkaga muuqdo haddii aad u baahan tahay live malware oo maaragtay active ah waxaad ka heli kartaa sources badan halkan oo kaleeta hadda waxaa ka heli kartaa the zoo qaybta github waxaa ka heli kartaa databasekan waxaa ku jiro live malwares marka aad iyo aad uga taxadar ha ku soo dejinin computerkaagii productionka ama systemkaagii productionka ha ku soo dejinin virtual box oo keliya u isticmaal markaa soo dejinaysid sidoo kale aniga halkan databasekana isticmaalaa oo loo yaqaano bazaar malware bazaar waxa waaye website oo Switzerland laga leeyahay isagana aad u fiican yahay malware samples oo muhiim ah ka helaysaa haddii aad u baahan tahay marka inaad malware active ah ama live ah soo dejisid halkan detailska ku dhufanaysaa kadibna am not robot aad leedahay intaas kabacdi wuxuu ku siinayaa sampleska malwareka marka malwareka rabtid dii uu maaragtay yahay DLL malware haddaa rabtid dii MSI uu yahay oo EXE yahay dhammaan APK oo mobilada loogu talagalay any kind of malware waa ka helaysaa halkan waa database haddaa rabtidna search oo isticmaali kartaa oo nooca malware aad rabtid ayaa raadin kartaa malwareka ku qanacday مثلا tusaale ahaan malwarekan APK ku kala u baahatay agana click leedahay oo hash value-giisa kadibna faahfaahinta malwarekaas uu ku siinayaa ugu dambeyn markaas halkan download sample ay ku qoran tahay aad download click leedahay kadibna saas kugu soo degaya marka wixii intaas dhaafsiisan adiga mas'uuliyaddeeda qaadayo waa malware active ah oo maaragtay live ah ee shaqeynayo marka aad iyo aad ugu taxadara halkan malwarekii samplekii waa lagu soo gudbiyey ama adiga si uun ku heshay haddii aad u baahan tahay marka inaad analyze ku samaysid maxay tahay talaabooyinka muhiimka ah oo la qaadayo marka la sameynayo malware analysis marka aan sameynayno waxaa u baahannahay in la helo full isolated environment meel uusan malwarekaas damage uusan ka geysan karin in lagu taxliili qodobka labaad ee loo baahan yahay waxa waaye in la helo internet simulation ama internet connection in la helo malwareda qaarkood waxay u baahan yihiin in la xiriiraan banaanka ama waxa loo yaqaano command and control waxa waaye meesha malwarekan markii la sameynayay loogu talagalay inuu la xiriiro yacni hackerka kaleeto inuu la xiriiro marka sida uu la xiriiro muxuu u baahan yahay internet connection waxaa jira marka virtual box loo yaqaano Remnex this virtual box marka wuxuu ku siinayaa internet simulation oo wuxuu leeyahay application loo yaqaano inetsim kan marka wuxuu siinayaa simulation oo u eg sida internetka oo kaleete wax alaal wixii malwareka u baahan yahayna siinayo wuxuu siinayaa dhammaan wax alaal wixii u baahan yahay banaanka ka raadin lahaa malwareka sida haddii uu rabo inuu la xiriiro https connection hadduu rabo inuu sameeyo hadduu rabo file inuu soo dejiyo hadduu rabay sida applications iyo waxyaabo lamid ah wax walba oo malwareka uu banaanka ugu baahan lahaa waxaa siinayo Remnex saas daraadeed malwareka mar alaala markii la kiciyo waxyaabo badan oo laga filayaa jiro waxaa ka mid ah in uu malwarekaas markii la kiciyo uu sameyn karo in uu malware kaleete uu u soo dejiyo systemka qofka victimkii malwarekaas rangareeyay ama kiciyay ama isticmaalay sidee lagu ogaanaa marka taxliilinta intaa wadid waa inaad u diyaarsan tahay labadan shay aan soo sheegnay hadda in position oo dhibaato uusan kaaga geysan aad ku taxliiliso sida Flare VM oo kaleeta oo full isolated environment ah internetka uu ka xiran yahay internetka aad ka xirtay bedelkiisana aad ku talaashid ama aad isku xiriirisid Remnex sida marka Remnex loogu talaalo ama loogu xiriiriyo Flare VM waxaan ku soo sheegay muuqaalka aan ku duubay sida labka loo sameeyo ama loo dhisto saas daraadeed hadda waxaan bilaabeynaa hawshii analysiskan bilaabeynaa waxaan u sameynaynaa procedure ama hab loo sameeyo analysiska marka analysiska sameynaysa malwareka waxay u qaybsamayaan labada hab soo socoto qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa static analysis marka static analysis waxa waaye in macluumaad hordhac ah malwarekan aad ka diyaarisid in macluumaad aad ka aruurisid intaas kadib qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa dynamic analysis muxuu yahay marka dynamic analysis waxa waaye in malwarekii computerkaaga dhexdiisa aad ku run garaysid oo aad double click dhahdid aad fiirisid maxaa dhici doona
haddii malwarekan la rangareeyo kadibna aad ma aragtay soo saartid macluumaad ama report full ah oo ku saabsan malwarekan. So dynamic analysis-ka waa ka qoto dheer yahay, waa ka ballaaran yahay static analysis, laakiin dynamic analysis-ka waa inaad malwareka rangareysaa, aad fiirisaa waxa uu u geysanayo networkgaaga, sidoo kale waxa uu u geysanayo hostiga ama computerka ama systemka lagu dhex rangareeyay. Marka dynamic ka hadlayno marka waxaa usii qaybin doonaa laba qaybood. waxa loo yaqaano in aan raadino indicator of compromise oo ah astaamaha muujinayo waxaan inuu yahay malware, kadibna uu dhaawac u geystay networkgayga ama uu soo dejiyey unauthorized applications ama files inuu usoo dejiyey systemkayga. waa qaybta koowaad, waxaa loo yaqaanaa network based indicator of compromise. qaybta kaleetana waxaa loo yaqaanaa marka dynamic analysis la sameynayo in la raadiyo waxa loo yaqaano host based indicator of compromise oo ah in systemkan gudihiisa muxuu ka geystay dhibaato malwarekan. marka haddaan markale kusoo celiyo si guud, malwareka markii la analyze gareynayo waxay u qaybsamaan laba qaybood, static analysis iyo dynamic analysis. marka laga hadlayo static, xog aruurin bilow ah waaye. marka laga hadlayo dynamicna waa in malwarekii la rangareeyo oo macluumaad dhammaystiran laga raadiyo. marka dynamic analysis la sameynayo waxay usii kala qaybsamayaan laba qaybood. waxa la raadinayo waxay isugu jiraan network based indicator of compromise iyo host based indicator of compromise oo loola jeedo networkgayga malwarekan markaa rangareeyo kadib muxuu sameynayaa oo compromise muujinayo ama attack muujinayo ama hack muujinayo. sidoo kaleete hostiga ama systemka maxaa muujinayo malwarekan markaa rangareeyo kadib in waxyaabo attack muujinayo ama inuu malware muujinayo oo quseeyo ama ku aadan systemkayga maxaa ka mid ah. marka intaas waa waxa aan sameyn doono procedureska loo yaqaano ama stepska loo yaqaano oo la mari doono. waxaan hadda ka bilaabeynaa static analysis. marka static analysis la sameynayo marka toolska aan isticmaali doono iyo stepska waa iska gaaban yihiin. waxa ugu horeeyo aad sameynaysid waxa waaye in aad marka ugu horeyso filekan hash value-giisa aad la soo baxdid si aad macluumaad dheeri ah outsourcing ah ugu sameysid banaanka. marka ugu horeeyo marka waa zip file. waxaan leenahay unzip, double click dheh, kadib malwareka waa kana soo jiid banaanka keen. password uu ku weydiinaya waa infected haddii aad kasoo dejisay bazaar. malwarekii waa kana, waa sidaan. malwareka wuxuu u samaysan yahay malware.unknown.exe waaye. then malice extension ha gadaal ka raacsan. this malice extension marka waxaa loogu talagalay in lagu badbaadiyo malwareka oo si sahlan aan double click loo sameynin oo taxadar ahaan ayaa extensionkan gadaal loogu daray. laakiin hadhoodii waa ka bixineynaa intaan dambe oo ma aragtay rename aan ku sameyneynaa. malwarekii waa kana, wax id ma ka hayo. wax ugu horeeya aan sameynayo waxa waaye in aan hash value-giisa helo. before that waa inaan note samaystaa. applicationada noteka lagu sameeyo waa badan yihiin, laakiin midka adiga aad rabtid aad ku qanacsan tahay aad soo qaadan kartaa. wax alaala wixii ku saabsan applicationkan halkaanaan ku qoraneynaa. wax ugu horeeya aan sameynayna maxaa waaye sida aan soo sheegnay hash value-ga applicationkan aan raadineynaa. toolkan wuxuu la mid yahay cmd-ga caadiga ah, lervia ama uu ku jiraa. si marka aan u raadino hash value-ga malwarekan waxaan leenahay md5 aa ku raadin kartaa. haddii kale waxaad dhihi kartaa sha256 sum.exe tab aa keliya leedahay. kadibna horta halka uu malwareka uu yaalo waa desktopka, cd desktop, kadibna waxaa leedahay sha256. so marka enter dhahdid wuxuu ku siinayaa hash value-ga malwarekan. then hash value-gana soo qaadaysaa, right click ayaad siinaysaa markaad select dhahdid, kadib copy uu sameynaa. VirusTotal waa database weyn oo loogu talagalay in aad ka raadisid wax walbo oo suspicious ah. marka halkan file haddii aad malware gelinaysid aad gelin kartaa, url haddaa rabto waa gelin kartaa. aniga waxaan leeyahay search markaan dhahayo wax walbaan raadinayaa hash value oo fileki aniga aan wax aqoon u lahayn aan gelinayaa, kadibna enter aan dhahayaa. haddaad fiiriso halkan waxaa ujeedaa wuxuu leeyahay 54 ka mid ah 71 antivirus system ayaa soo qabtay, waxayna u aqoonsan yihiin filekan inuu yahay malicious software. kuwa qaar oo dhahayo filekan wax problem ah ma qabo, uu ka gudbay malwareka uu soo qaban waayo. therefore malwarekan macluumaadkiisa hadaa u baahan tahay halkan behavior-ka taaban kartaa, details-ka imaan kartaa. behavior-ka oo wixii laga qoray oo dhan lagu soo koobay. haddaa rabtid reportka, labadan cape sandbox iyo VirusTotal ayaa report ka sameeyeen. reportkooda la degi kartaa, macluumaadkooda dhammaystiran iyo applicationkan waxa uu qabto dhan aad ka heli kartaa. intaas waa wixii macluumaad ah. marka hash value-ga heshay waxaad la aaday VirusTotal iyo other sources kale si aad u ogaatid bal horta filekan muxuu yahay asaga. idea kasoo heshay waxaa lagu sheegay inuu trojan yahay. halkan waa halka ay ka bilaabanayso xiisaha. maadaama aad ogaatay inuu filekan yahay malware,
waxaa isku dayeysaa marka in bal aad soo saarto application-kan gudihiisa waxa ku dhex jiro. Application-kan gudihiisa wax ku dhex jiro waxaan ka wadnaa application walba markii la sameynayo waxaa lagu soo dhex darayaa waxyaabihii uu qaban lahaa, IP addresska uu la xiriiri lahaa application-kan. Sidoo kale haddii application-kan uu yahay dropper, application-adii kale uu soo dejin lahaa, wax walba markii malware-kan la qoraayo ayaa waxaa lagu soo dhex qorayaa wixii uu qaban lahaa. Waxaas waxaa loo yaqaanaa marka strings. Waxaan ka dhex raadinaa maadaama malware-kan uu yahay malware, strings aan ka raadinaa ama qoraallo ama xarfo human readable ah oo bini'aadamka ay fahmi karaan anoon weli run gareynin amaan kicinin. Tool badan oo iga saacidayaa jiro, waxaa ka mid ah toolashaas tool la dhaho Floss, Flare VM ku dhex jiro. Maadaama aan dhahnay Flare VM waa operating system loogu talagalay in analysis lagu sameeyo, Floss haddaa dhahdid malware.unknown.mals waa dhahdid bal run gareey, inkastoo inaad save gareysid uu ku fiican yahay oo output ahaan filekan aa meel u dhigatid si aa u ogaatid mar walbo reference soo kugu noqdo aa mar walba dib ugu soo raacan kartid. Then hadda wuxuu sameeyey in uu soo saaro macluumaadkii. Haddaad fiirisid halkan waa application-ka waxa ku dhex jiro oo strings wax loo yaqaano human readable. Then xarfihii uu soo helay Floss qaarkood waxyaabo oo macnaha nonsense ah waay oo loo baahneen, qaarkoodna waxyaabo muhiim ah oo loo baahan yahay waay. Waxyaabo uu soo saaray waxaa ka mid ah APIs-kan ama functions-kan dadka programmers-ka ah yaqaano. Yacni tusaale ahaan adoo maqaayad tagtay, maqaayad markaad tagtay kadib kursi aa fadhiisatay, customer aa tahay, application-kan waa customer, APIs-kanna waa sida waiterka oo kaleeto waaye. Waxay kugu xirayaan chiefka ama qofka raashinka karinayo oo server-ka camal ah. So server ayaa rabtaa inaad wax lagaaga soo dejiyo, internet open URL API isticmaalaysaa, waa Camilleri-gii waxbaa u dirsanaysaa, ii sameey internet ii furaa leedahay, kan wax ii soo download gareeyaa leedahay. API-yada qaarkood waa sensitive, waa malware malicious activities tilmaamayaan, waa inaad fahamtaa horta internet uu dalbanaya. Okay, sidoo kale file inuu download so loo download gareeyo rabaa. Okay, waxyaabahaas oo dhan inay kugu soo dhacaan waaye. Xarfahan oo kaleete hadda xarfo muhiim ah ku jiro sida in cmd.exe file ama cmd inuu kiciyo rabaa. Marka meeshan command oo maaragtay string la akhrin kara ku yaalo. Sidoo kale http ayaa halkan ka muuqato, waxaa ka muuqato meeshan inuu la xiriiri rabo this local server, then kadibna uu codsaday favicon.ico. Sidoo kale halkan waxaa ka muuqato in user see public documents in uu maaragtay dhex dhigi rabo this application exe. So waxyaabo badan oo muhiim ah halkan ku qoran. Anaga marka waxaan sameynaynaa waa copy gareynaynaa xogtan. Waxaan leeyahay Floss output wixii aan ka soo helay, xarfihii waxay noqdeen xarfahan. Marka xarfahan waa very important, waa ogaanaynaa waxa ay yihiin. Sidan waa static analysis markii la sameynayo in filekan adoo run gareynin macluumaadkiisa aad raadisid. Intaas kadib anagoo ka duulayna macluumaadkan hore dhaca ah, ma sii heli karnaa macluumaad intaan kasii balaaran? Haa, markaan waaye marka loo baahanayo in loo gudbo stepkii labaad ee ahaa dynamic analysis. Dynamic analysis markaan ka hadlayno waa in aan run gareynaa kadibna aan u kala qaybinaa waxa aan helayno network based indicator of compromise iyo host based indicator of compromise. Stepkan labaad malware-ka waa in la run gareeyaa. Halkan markaad joogto marka iska hubi in uu ku run gareysan yahay inetsim. Inetsim markuu ku run gareysan yahay waxaad heli doontaa internet connection simulation si ku tijaabinaysaa test.com. then test.com markaad dhahdid waa inuu kuu soo baxaa inetsim http server ayaa ku jirta, ama inuu kuu soo qabto in inetsim aa ku jirtid. Waxa uu hadda u maleynayaa inuu internet haysto laakiin internet ma haysto. Then marka aan run gareyno, si loo run gareeyo maxaa loo baahan yahay? Sidan double click laguma sameyn karo. Waxaa leedahay right click then rename, kadibna intaan mals.exe ayaad kusoo reebeysaa, kadibna hadda waa diyaarsan yahay. wax ugu horeeya aan sameynayo maxaa iska run gareynaa? Maya, waxaan fiirinayo nodekeyga, waxaan leeyahay malwarekan aniga soo ma rabi inaan ogaado host based indicator of compromise iyo network based, laana ujeedi iyo goal aan leeyahay. Waxaan ka bilaabeynaa qaybta network-ga. Waxaan isticmaaleynaa tool loo yaqaano Wireshark. Wireshark wuxuu naga caawinayaa inuu traffic-ga network-geena uu capture ku sameeyo, uu noo sheego waxa uu sameynayo application-kan iyo cidda uu la xiriirayo. Marka waxaan ogsoonahay inuu http server-kan local server-kan la xiriiray. waxaana kasoo ogaanay xogtan Floss ama markaan static analysis sameynayni intaan inuu dalbaday favicon.ico. intaan haddaan copy soo dhaho kadibna aan imaado Ramnexus waa toolkii hadda aan ka
sameynayni internet connectionka sudo wireshark, then wireshark markuu kusoo kaco double click dheh wireless adapterka, then wuxuu bilaabayaa capturing IP addresska. Halkan haddaan fiirino, this is waa IP address, midkaana haddii aad fiiriso IP config, this is waa IP address number 3. marka Ramnexka haddaa imaadid waxaan rabnaa inaan soo saarno maadaama applicationkan uu dalbanayo this application, bal aan fiirino waxa uu dalbanayo. Filter ku sameynayna marka waxaan leenahay filter, waxaan leenahay http://request.full URI, then waxaan leenahay contains, waxaan pass ku dhahayaa wixii uu dalbanayay malwareka oo ahaa inuu pagekan ama filekan uu gaaro uu dalbanayay, then halkan enter aan leeyahay. marka enter dhaho wax hadda yaalo ama cid dalbatay ma laha, laakiin markii aan imaado applicationka ilan weli ani maran gareynin, hadda aan double click dhaho applicationkii aaran gareeyo, then aan u imaado wireshark, waxaa ujeedaa in uu isoo qabtay IP addresskan waa serverkii uu wax asaga uu ka raadinayo waaye. IP addresskana waa IP addresskeenii magaciisu muxuu ahaa Ramnexka oo u jilayay in uu yahay command and controlkiisa ama meeshii serverkii inuu gaaro la rabay. marka halkan muxuu weydiiyey, wuxuu dhahay waxaa ii heshaa get request uu ka dalbaday, waxaa dhahdaa haddii get aad dhahayd follow http stream haddaa dhahdid, wuxuu dhahay waxaa ii heshaa favicon.ico iraadi. cidda uu wax weydiistayn hostigana waa kan. hadda halkan fiiriso marka ma isku eg yihiin waxa uu dalbaday. fiiri data manager help disk blah.local, haddaa fiirisid wireshark waxa uu qabtana waa same, waxa uu qabtay waa same. haddii xitaa halkan sii tixraacdo waa arki kartaa waxa uu dalbaday inet sim ayaa uga soo jawaabtay, then waxa uu codsaday waa favicon.ico, cidda uu ka codsadana waa halkan. waxa iga qaada screenshot maadaama caddeyn buuxda aan helay in networkgeyga uu wax ka dalbaday, laakiin still wax macluumaad oo ziyaada ah usii baahanahay oo lagu qanci karo. then waa ogsoonahay inuu network la xiriirayo oo meel uu la xiriirayo uu wax uu dalbanayo oo this server uu dalbanayo. then intaas kadib waxaan u gudbaynaa in dhanka hostiga, bal maadaama aan aragnay in exe file dhex dhigi doono documents, bal aan ha fiirino. network waxaa naga caawinaya wireshark, waa soo ogaanay inuu wax soo dejinayo, laakiin marka hostiga loo yimaado this malware waxaa naga caawinayo tool loo yaqaano Procmon. toolkan Procmon wuxuu ku jiraa utilities, then Procmon double click dheh. yes, Procmon marka waa tool aad u fiican. waxaa sameynaysaa in aan malwarekan magaciisa soo copy gareynaysaa. markaa soo copy gareysid kadib waxaa leedahay filter, kadibna waxaa leedahay process name, labadii process isku bedelaya, kadibna is aa leedahay, kadibna malwareka magaciisa soo gelinaysa, add aa leedahay, kadibna apply. marka apply dhahdid capturing wuu wadaa, laakiin this process oo hadda aad soo xareysay isoo qabo filter igu samee aad dhahday weli la maran gareynin. mar alaala markaa run dhahdid processkaasuu soo qabanaa. hadda aad dhahdid double click wuxuu soo qabtay malwarekii hadda sambalkiisa aan filterka soo gelinay. then waxaa halkan ka muuqda marka wax alaala wixii applicationkan oo systemka gudihiisa oo ka dhex sameeyey, waa haddii uu file uu sameyn lahaa, haddii register uu sameyn lahaa, wax walbo macnaha halkan process namekii waaye, operationki wax uu qabanayay, process ID pathki meesha wax uu ka sameeyey, iyo inuu guuleystay in kale iyo detailskiisa. haddii marka aan dhahno filter waxaa noogu sameysaa operationskiisa waxay isaga uu sameeyey, waxaan dhahnaa mathalan tusaale aan operations filter ku sameey, waxaa dhahdaa contains muxuu file abuuray malwarekan. haddaad dhahdid add oo aad dhahdid checkay ku saaran tahay file wuxuu u abuuray malwarekan ii sameey, okay aad dhahdid wuxuu ku siinayaa dhammaan waxa file uu abuuray iyo waxa uu xiray iyo waxa uu modification ku sameeyey kulli wuu ku siinaa. halkan haddaa fiirisid marka oo si fiican deeply u fiirisid filalkii uu malwarekan oo keliya waaye waxaan. haddaa hoos timaado oo si fiican u dhuuxda mid walbo, haddaa hoos timaado oo si fiican u dhuuxda mid walbo, waxaa arkaysaa qayb ka mid ah xitaa waxyaabihii aan kusoo aragnay static analysiskeeni. halkan waxaa lagu leeyahay fiili wuxuu sameeyey right file, right click dheh, kadibna properties dheh. halkan si fiican u fiiri, waxaa lagu leeyahay malwarekan wuxuu sameeyey waxa loo yaqaan operation right file. waxbuu qoray, yaa wax qoray applicationkan malware.unknown.exe right file ayuu sameeyey ayaa lagu dhahay. haye kadibna meesha wax ku qoray waa pathkan waay. haddaan right click copy dhahdid oo aad halkan imaadid oo aad dhahdid halkan, kadibna aad dhahdid control v pathki gey, aad fiirisid waa kana. haddii aad hadda si looxa aan u hubino haddii aad hadda tirtid aad dhahdid permanently tirtir oo aad imaadid desktopka, kadibna aad malwareki marka la rangareysid oo halkan fiirisid, waxaan arkaynaa in uu
filekii uu abuurayo malwarekii oo waa proof oo waa caddeyn in waxa uu sheegayo Rockmon ay sax yihiin. Right file uu sameeyey, file systemku wax ku sameeyey, success waaye. This application ayuuna ugu abuuray in your file system. Ugu dambeyn marka waxaan hubinay oo xaqiijinay inuu yahay malicious software soo dejinayo another application kale. This application marka ayaa waxaa loo aqoonsan karaa wax loo yaqaano second stage payload, malware kale oo shaqada ugu culus qaban lahaa. maadaama annaga aan simulationka inet sim aan isticmaaleyno, applicationkan ma ahan applicationkii saxda oo malwareka uu dalbaday ma aha. inet sim ayaa naga caawiyey. hadda waxaan ogaan hadda conclusion sameyno in malwarekan uu rabo inuu gaaro outside network inuu gaaro. kadibna waxaan kaloo ogaanay malwarekan in uu filekan kusoo dhex dejinayo file systemkeena public documentiga. sidaas daraadeed waxaan hadda hubnaa in filekan uu yahay malware. hadda waxaan u bixin karnaa magac meeshii unknown ahaa waxaan u bedeli karnaa inaan dhahno waa dropper. dropper muxuu u yahay? wuxuu noo soo drop gareeyey ama wuxuu noo keenay this application. so waa dropper waaye, asaga wax ma qaban rabo malwarekan, laakiin this application ayaa wax qaban rabo. then haddii aan summarize garayna marka ama soo koobno contentigii ama macluumaadkii ugu horreeyay aan flows ka helnay, waxyaabo badan aan ka faa'iidnay. waxaan soo ogaanay filekan, waan soo xaqiijinay. sidoo kaleete waxaan ogaanay in uu gaarayo server. sidoo kale waxaan kaloo ogaanay markuu internet connection uu helo uu pingareeyo this static IP address oo hore loo sii diyaariyey applicationkan in our documents inuu ku shubayo. waxa kaliya noo harsan waxa waaye what if haddii internet connection uu waayo maxaa dhacayo. bal aan ayadan tijaabino, aan iska xirno. intaan xirin ka hor hal mar waxaan sameyneynaa inet sim internet simulationkii ayaan joojinaynaa oo waxaan leenahay wireshark iska xir isagana close terminal. internet simulationkan control C waa stop gareyneynaa. then waxaan hubinaynaa halkan waxaan leenahay Google. then inet sim inaan wayno internetka inuu xiran yahay la rabaa. then okay, now marka waa ogsoonnahay inuu internet simulation uusan lahayn, internetkeen uu xiran yahay. waxaan rabnaa inaan hubino conceptigan haddii internet la waayo maxaa dhacayo. waxbaa la tiri doonaa meeshan ku qoran. then double click dheh. double click markaa dhahdid then waxaan sugaynaa wax dhici doono. okay, double click aan dhahay wuu istirtiray. so the whole malware wuu istirtiray. then malwarekan marka waxaan xaqiijinay haddii internet connection uu haysto in uu soo dejiyo this application, kadibna uu kusoo rangareeyo in your public documents, kadibna hawshii dhiman uu asaga dhammaystiro. haddii internet connection uu waayana in uu istirtiro oo halkaas uu iska saaro malwareka uu isdelete gareeyo. marka muuqaalkeeni maanta halkaas ayaan kusoo koobaynaa. applications kaleeta la isticmaalaa jiro oo aan muuqaalkan xigo aan kusoo bandhigi doono. muuqaalkeena maanta halkan ayaan kusoo koobaynaa. inta aan muuqaalka xigo kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo. waa mahadsantihiin, khayr badan aan idin rajeynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.